deegaanka Haranbuure ee gobolkan Galgaduud ayaa maalintii shanaad oo xiriir ah waxaa ku dagaalamay beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega waxaana maalinta ka dambaysa sii adkaanaysa xiisada dagaalkan u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega maadaama deegaankan ay gaarayaan gurmadyo kala xoojinaya maleeshiyaadka deegaankaas ku diriraya oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. maamulka Galmudug ayaa baaq ka soo saaray arrinkaas. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Galmudug Abdiwaayeel iyo wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Sharif Balagle oo maanta si wadajir ah saxaafadda kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa ka dalbaday in beelaha halkaasi ku diriraya ay si shuruud la'aan ah u joojiyaan xabadda waxayna sidoo kale ciidamada ammaanka amreen inay si degdeg ah deegaankaas uga howlgalaan. saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay in la joojiyo dagaalka socda muddo ka socday Haranbuure annagoo matalayna xukuumadda Galmudug waxaan codsanaynaa in degdeg loo joojiyo dagaalkaas oo muddo meesha ka jiray khilaafkiisuna muddo soo jiitamay 7 bilood 8 bilood arintaas ay soo jiitamaysay. waxaan codsanaynaa dadka kala duwan oo dagaalka ku jira inay xabadda joojiyaan wada hadal ku soo dhawaadaan ay ogolaadaan in xaajadatan wada hadal lagu dhameystiro ciidankana iyo maleeshiyaadkana ay kala geeyaan meelihii ay markii hore ka yimaadeen. sidoo kale waxaan ciidamada amniga ka codsanaynaa iyo wasiirka amnigaba in arinta laga howlgalo si degdeg ah. shalana madaxweynaha dawladda federaalka amar buu arinta ka bixiyay waxaana soo gaarsiiyay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ah oo nala jiray. waxaan codsanaynaa marka hay'adaha amnigu inay shaqada uga aadan arinta ka qabsadaan inay maleeshiyaadkaas deegaamadii ay kala yimaadeen la kala geeyo in amniga la xoojiyo in culimada iyo waxgaradka iyo salaadiintu ay u istaagaan arintaas joojinteeda ka bacdina arintaas wada hadal laga galo. arintaasaan codsanaynaa oo soo jeedinaynaa ciidamada amniga waxaan ku adkaynaynaa cidii ka dhag adeegta joojinta xabadda iyo soo jeedinta dawladda inay iyagu markaa hawshooda ay ka qabsadaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan anagu ku hadlaynaa magaca dawladda. colaadaasi waxa weeye colaad aan loo baahnayn. waxaan codsanaynaa labada dhinacba shuruud la'aan inay joojiyaan xabadda iyagoo aan wax shuruuda ku xirayn. waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka iyo culummada iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo duqeyda iyo sabadoonnaduna inay u istaagaan finada halkaa ka jirtaay in la dabagalo ma mudne waxay mudantahay in laga hortago. dawladda Galmudug annagoo magaceeda ku hadlaynana hay'adaha amniga waxaa la amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan ciddii u hoggaansan weydana ay gacan bira ku dhigaan oo ay arintaas ay ka howlgalaan wayna ka howlgalayaan way ku howleeyihiin. marka waxaanu leenahay colaadaasi ha la joojiyo. wiil markuu dhinto oo wiil kala dhinto oo wiilal badan dhintaan ayaa waxaa rabtaan inaad inta la isku yimaado la yiraahdo colaadii baa la dabiye. haatan waa in laga hortago oo loo istaago. dawladduna way barbar taagan tahay. shantii maalin ee uu socday dagaalkani ayuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Farxaan Ahmed Abdi, TV-ga caalamiga ah Universal, Dhuusamareeb.